maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin boqor wuxuu kormeer ku sameeyey magaaladii uu ka talinayay suuqyaasheedii. wixii uu dhex socdaba oo hadba meherad galaba wuxuu markii dambe u yimid nin oday ah oo dhex fadha meel aad iyo aad u boor badan. markaaba wuxuu weydiiyey, meesha maxaad ku iibinaysaa? markaaba ninka odagaa wuxuu ku jawaabay, meeshan waxaan ku iibinayaa xigmad. ninkii boqorka ahay aad ayuu u yaaba. markaaba wuxuu yidhi, bal hal xigmad iga iibi. asagoo ihtimaam gooniya ama si jees ah iska dhahaya ayuu wuxuu dhahay, hal xigmad bal iga iibi. markaabuu odagii hal xigmad ka iibiyey, wuxuuna kula dardaarmay xigmaddan inuu ku dhejiyo meel kasta oo gurgiisa ka mid ah, irdaha, dhinacyada, meel kasta oo gurgiisa ka mid inuu ku dhejiyo. boqorkii waa qaatay, waana ku dhejiyey gurgii meel kastoo iriddiisa hore, guryaha dhinaciisa, iridda hore, iridda dambe, waxa dhan waa ku dhejiyey. waxaa dhacay, boqorka waxaa loo qorsheeyey in la afgembiyo oo xukunka laga rido asagana la dilo. rag marka loo soo diyaarshay baa gurgiisii isweer ka qabtay. markii gurgii ay imaadeen bay waxay arkeen inay gurga ku qoran tahay xigmaddii oo odagu ka soo iibshay oo ahayd, ka fiirso intaadan falin. xigmaddaas ayuu ka iibshay, in badan inaad maqasheenna waa macquul. markii ay arkeen ka fiirso intaadan falin bay waxay isdhaheen, qorshuhu amuu inka soo roreeyo oo layna fahmay. haddana ma aysan joogsana gudahay u soo galeen. markaas bay albaabkii haddana labaad bay waxay ku arkeen, ka fiirso intaadan falin. markaas bay waxay yaqiinsadeen in shaxdan waxa waaye la dejiyey oo ay fashilmeen oo hore loo ogaa soo socodkooda iyo imaatankoodaba. kadibna dib bay u laabteen iyagoo socodka boobaya. kadib boqorkii ayaa ogaaday iyo ilaaladiisii in gurga la soo jabshay oo niman ay soo galeen. kadibna xikmaddaas ayada ah oo boqorku ku badbaaday oo ah, ka fiirso intaadan falin. haddaba maxaan ka faa'iidi karnaa xigmaddan? idinka ina weydiinayaa.